xildhibaanada sharafta leh diblomaasiyiinta isimada iyo cuqaasha bahda saxaafadda ururada rayidka culimada haweenka musharaxiinta ciidamada ammaanka sugaya iyo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo maqaamka uu ku fadhiyo rabbi yashrax lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin magacaygu waa mursal aadan shiikhdoon waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaan leeyahay khibrad shaqo oo 20 sano ku dhow waxaan ka soo shaqeeyay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa mudanayaal iyo marwooyin Puntland waxay soo martay 5 sano ee maamul 5 sano oo maamul xumo iyo siyaasad guraacan darteed ahayd waxaana dumay dhaqaalihii Puntland waxaa hoos u dhacay noloshii qoysaska Soomaaliyeed ee reer Puntland waxaa dalka ka haajiray qoysas fara badan waxaa dad badan rumaysan yihiin in hay'adihii dawladda ay ganacsi u bedeshay madaxtooyooyinkii soo maray ganacsigaasoo shakhsiyaad gaara awood u siiyay in kaligood helaan fursadaha qandaraasyada iyo fursad walba oo dalka ka abuuri lahayd dhaqaaluhu inuu wareego ciidankii dawladda waxaa loo adeegsaday siyaasad ciidamada Puntland wuxuu markii ugu horeysay galay iska horimaad ciidanka u dhaxeeya oo ka dhaca magaalooyinka Boosaaso Garowe Gaalkacyo waxaana ku dhintay dad tiro badan oo ilaa iyo hadda cid dishay lagala hadlin cadaaladna aysan helin Puntland waxay gashay huwaanti la'aan siyaasadeed taasoo sababtay inay magaalada caasimadda Garowe laga qaxo in ka badan 5 jeer waxgaradkii Puntland ayaa taladii dalka laga saaray oo lagu soo koobay caqliga qof kaliya Puntland waxaa 5 sano ee la soo dhaafay lagu xadgudbay awoodda qaybsigii beelaha wada dhistay Puntland 1998 wasaaradaha Puntland waxay u qaybsamaan 3 qaybood kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada kuwa ka shaqeeya dhaqaalaha iyo kuwa ka shaqeeya awoodaha waa markii ugu horeysay taariikhda Puntland ay wasaaradaha siyaasadda awoodaha ka shaqeeya sida maaliyadda amniga arrimaha gudaha iyo qorsheynta afartaba ay si gaara wasiiro ugu yihiin beesha ma jirteen Puntland waxay 5 sano ka maqnayd miiska hoggaanka Soomaaliya taasoo ay Puntland ku weyday kaalinteedii hoggaamineed ee arrimaha Soomaaliya xiriir la'aanta dawladda federaalka iyo Puntland Puntland waxay 5 sano ka maqnayd miiska hoggaanka Soomaaliya taasoo Puntland ku weyday kaalinteedii hoggaamineed ee arrimaha Soomaaliya xiriir la'aanka dawladda federaalka Soomaaliya waxay salka ku haysaa arrimo shakhsi madaxtooyada ka maqan oo ay tabanayso madaxtooyada hadda joogta kuwii ka horeeyay waan ogeen madaxweynaha sharafta badan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faroole wuxuu nooga tagay tala aheed lagalama tashan Cabdiwali Cali Gaas sidoo kale xilkiisu wuxuu dhamaaday asagoo dawladda xiriirka loo jaray haddana maanta waxaan ognahay madaxweynaheena iyo dawladda federaalka meesha kala joogaan hase yeeshee arrintaasi waxay samaysay mashaariicdii horumarineed ee arrintan xiriirka go'ay ee dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxay samaysay mashaariicdii horumarineed ee Puntland waxbarashada in maqaamkii Puntland hoos u dhaciyo sidoo kale beesha caalamka fahmi weydo doodda Puntland iyo waxay tabanayso haddaba waxaa dhacday 5 sano ee Puntland miiska madasha Soomaaliya ka maqneed shuruuc badan oo taabanaya awood qaybsiga kheyraadka garsoorka iyo jinsiyadda oo qodob xasaasi ah oo la meel mariyay Puntland miiska ka maqan tahay
ciidamo baa Soomaaliya loo dhisay aysan Puntland qayb ka ahayn sidoo kale cunaqabateyntii waa la qaaday iyadoo Puntland wax aragti ah ay ka lahayn dastuurkii ayaa wax ka bedel weyn lagu sameeyay wax ka bedelka dastuurka wax ka bedelka dastuurka waa arinta masiiri ah oo taabanaysa jiritaanka Puntland iyo booskeedii muhiimka ka ahaa ay ku leeyahay dawladda dhiska Soomaaliya mudana gudoomiye mudanayaal iyo marweyn su'aasha ugu weyn ee maanta aan weydiin lahaa waxay ahayd haddii aad la macaamili weydeen dawladihii soo maray haddii aad la macaamili weydeen dawladda federaalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 5 sano oo mugdi ah iyo Puntland geliseen sidee baad ugu dabaalan doontaan arrimaha khatarta ah ee hadda soo wajahan sida wixii ay 5 sano ka maqnaadeen oo idinkoo garoowa jooga idinku dhaafay oo hadda la hirgelinayo su'aasha labaad sideebaa ugu dabaalan doontaan arrimaha khatarta ah ee ka soo cusboonaaday geeska Afrika ee Puntland waan ognahay in maanta lagu xadgudbay midnimada dhuleed ee Soomaaliya waxaan ahay musharaxii ugu horeeyay ee cambaareeyay arintaas mudanayaal iyo marweyn haddaan idinla wadaago waxqabadkayga amniga Puntland rabbi subxaanahu wa ta'ala markuu makaankii nabi Ibraahim alayhi salaam markuu ku makaaneeyay ducadii ku duceysay waxay ahayd rabbi ij'al li hada baladan aamina qodobkayga ugu koobaad waa amniga waxaan Puntland u dhisi doonaa ciidan loo dhan yahay oo boolis ah oo tayo leh kuwaas oo ku filnaan kara amniga dalka sidoo kale waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa siyaasadda amniga in la helo siyaasadaha amniga in loo helo shuruucda noo salaysan waxaan dhisi doonaa ciidamada daraawiishta oo difaaca dalka ku filan waxaan dhisi doonaa ciidamada daraawiish oo difaaca dalka ku filan lana aamini karo la iskula haleyn karo oo siyaasadda ka madax bannaan arrimaha ACC Khaatumo waxaan hubin doonaa in Puntland ay si mug leh mas'uuliyadda iskaga saarto amniga iyo difaaca gobolada ACC waxaan garab sii doonaa maamulka ACC anigoo ku xiri doona caalamka iyo qurbo joogta reer Puntland iyo ACC si ay u maalgeliyaan arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka una dhisaan xarumaha maamulka iyo goobaha dadweynaha ee maamulka Soomaaliland burburiyay qodobkayga saddexaad horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland waxaan dib u eegi doonaa siyaasadda maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha si aan u soo saaro shuruuc caalamka la jaan qaadi karta waxaana abuuri doonaa madal ay ku kulmaan aqoon-yahanada qurbo joogta reer Puntland si ay awood ugu yeeshaan inay xiriir la sameeyaan shirkadaha maalgashiga ayna u yimaadaan Puntland waxaan horumarin doonaa dekedaha Puntland waxaan dhisi doonaa wadooyinka isku xira gobolada Puntland waxaan dhammaystiri doonaa wadada Ceeldaahir Ceerigaaba oo joogta meeshii ay joogtay 5 sano ka hor waxaan dhisi doonaa wadooyin sahli kara in isu socodka gobolada Bari iyo Sanaag oo ah gobollo buuraley ah oo runtii dawladdu aysan sidii la rabay uga shaqeyn iyo dawladihii la soo dhaafay horumarinta adeeg qodobkayga afaraad horumarinta adeega bulshada waxaan horumarin doonaa adeega bulshada sida waxbarashada taasoo aan waxbarashada dugsiyada hoose ka dhigi doono mid jaban oo la awoodi karo gaartana deegaanada miyiga waxaa sidoo kale dhisi doonaa guddi qaabilsan tayeenta waxbarashada sare si loo helo adeeg waxbarasho oo tayo leh waxaan tayeyn doonaa adeegyada caafimaadka waxaan sanadka ugu horeeya muddaxileedkayga dhisi doona isbitaal weyn oo bixin kara adeega caafimaad oo la isku haleyn karo sidoo kale sanadkayga afaraad muddaxileedka dawladda Puntland waxay yeelan doontaa 4 isbitaal oo ugu tageda badan guud ahaan Soomaaliya kuwaasoo adeegsiin kara gobolada Soomaaliya waxaan xoog saari doonaa
bixinta adeegyada bulshada sida arrimaha gargaarka biyaha korontada iyo daryeelka qodobkayga shanaad dimuqraadiyadda waxaan ballan qaadayaa inaan dib u eegis ku samayn doono shuruucda arrimaha doorashooyinka dowladaha hoose iyo kuwa golaha wakiilada sidoo kale waxaan ballan qaadayaa inaan sii wado hirgelinta dimuqraadiyadda iyadoo loo marayo waddo loo dhan yahay la iskana arki karo waxaan ballan qaadayaa inaan saxo qalloocyadii siyaasadeed iyo gobodfalyadii lagu sameeyey dastuurka Puntland haddii wax laga bedelayo dastuurka ama shuruucda arrimaha doorashooyinka waxaan kala tashan doonaa saamileyda iyo cid walba oo talo ku leh si looga fogaado in talada hal qof isku gaar yeelo sidoo kale waxaan ballan qaadayaa in dastuurka Puntland loo qaado afti dadweyne si ay meesha uga saarto khibraddii aynu helnay 5 sano iyo kuwii ka horeeyay ee la xiriirtay dastuurka si fudud wax looga bedelo iyadoo dano siyaasadeed laga leeyahay horumarinta dawladda hoose qodobkayga 6 horumarinta dawladda hoose waxaan ballan qaadayaa inaan awoodda u dadejin doono dawladda hoose waxaan kor u qaadayaa capacity-ga dawladda hoose iyo si ay awoodda ugu yeeshaan inay bixiyaan adeegyada dastuurigu siinayo qodobkayga 7 xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan idin ballan qaadayaa mudanayaal iyo barwooyin inaan xiriir dawladda federaalka iyo kan Puntland wanaajin doono anigoo ku baraarugsan arrimaha dhex yaala labada dhinac Puntlandna waxay kaalin weyn ku leeyahay dhismihii dawladda federaalka hadda waxaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa anigoo idin xasuusanaya in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha ballan baa ilaahay ballan buu idin siiyey ilaahay ballan amaanadu idinku wareejiyey amaanadaas waa inaad meesha ugu habboon aad dhigtaan meelaad ka timaadeen mudanayaal iyo marwooyin waad ogtihiin duruufo baa ka jira xanuunaa ka jira daadad baa ka jira abaaraa ka jira waxaan idin farayaa kitaabka aad ku dhaarateen inaad ka run sheegtaan oo ilaahay baa idin ogyahay inaad codka saxda ah qofka saxda ah ilaahay idinku ogyaasiisaan waana mahadsantihiin sidoo kale waxaan halkan ka codsanayaa gudoomiye